Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada channelka historyga maanta waxaanu ka sheekeynaa dagaal dhacay 1977 oo u dhexeeyay labada wadan Soomaaliya iyo Itoobiya. Dagaalkani sababtoo u biloomay waxa weeyaan berigii uu Ingiriisku guumeystay Somaliland. Ingiriisku markaa dhul la raaho hawd amba ogaadeen ayuu siiyay Itoobiyaanka siduu Ingiriisku boqorka Itoobiyaanka beriga uu la saaxiibo. boqorka beriga Itoobiya waxa la oran jiray Haile Selassie. Marka Soomaalidu muddo dheer bay ka xanaaqsanaayeen oo Ingiriiska ay la dagaalamayeen sida ay dhulkooga u soo helaan. Marka 1977 waxa dhacay Soomaaliya ayaa qaraar bay qaadatay inay xoog soo qaadato dhulkeedii ka lumay. Dagaalku waxay ka bilowmatay markuu Soomaaliya militarigiisa soo galay Itoobiya meeshii ahaan jirtay dhulkii Soomaalida. Soviet Unionkii imka laakiin la raaho Russia ayaa xanaaqay oo berigii hore waxay taageeri jireen Soomaalida laakiin markay arkeen inay Soomaalidu ay diiday amarkeedii oo caasiday oo ay la dagaalantay Itoobiya waxay qaraar qaadatay Soviet Unionkii inay u jirto Itoobiya oo ayna ka ilaaliso in la qabsado Itoobiya. Si ay ugu ilaaliso Soviet Union amba imka Russia wadanka loo yaqaano ayaa waxay u dirtay diyaarado rusheynaya Soomaalida. Soomaaliduna beriga diyaarado waxa weligood mi arag hadii dhowr qof ay arkayna uu ka baxsanayay qofka arkay ilaa diyaaradu xiyay maxad sameeyay diyaaradu ma la feertamaysa waxay sameeyay marka gibiyoogu bade waxaad sameyn lahayn anagu imika way ka wala baxsaday meesha in diyaaraduna mi lahayn ay isku difaacaan marka qaraar kaliya oo haray inta. Soviet Unionkii way ka durkiyeen Soomaalida oo way ka eriyeen Itoobiya gibigoodaba. Dhulkii ay ka lumay Soomaalida berigii Ingiriiska ilaa iminkana uu ka maqan yahay sababtuna waxa weeyaan Soviet Unionka ayaa ka diiday. Iminka daawade amba dhageysiye ka waran hadduu iminka Soviet Unionka aanu soo dhexgelin afaaraha Soomaalida iyo Itoobiyaanka. Iminka Soomaalida xilligan waxay heli lahayd dhulkii ka lumay hawd welibana waxay heli lahayd haddaanay ka qaban Soviet Unionku waxayna welibana heli lahayd dhulka la raaho Itoobiya.